الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينا غير تقدر أصوب النام بحي معلم تودي الدين مي مدحدو دا قرنكا مدحدو دا حزبية دا وحايدكو سلام ايالي وكوهم بليلي معلم تقرنكا waxaan ku hambalyeeynaa maalinta qaranka shacabka reer Soomaaliland oo dhan ee dalka gudihiisa ku sugan ee daafaha dunida jooga waxaan hambalyo aan la koobi karin u dirayaa ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan xuduudaha qaranka ee difaacaya ee u dhiigbaxaya ee u dhaawacmaya ayaan halkan hambalyo iyo duco iyo bogaadin u dirayaa. hambalyadaa dabadeed maanta 30 sannadood ka hor maalin lagaga dhawaaqay Burco oo diin may ahayd oo 19 ahayd oo aynu ku dhawaaqnay halkan qadhaadh dabadii xornimadeennii luntay inaynu la soo noqonnay reer Soomaaliland oo u dhan bari iyo galbeed aan ninna maqnayn nin maanta dafirsan iyo nin aan dafirsanaynba reer Soomaaliland oo u dhan maalintaa diin may waan taagnaa qolo maqnayd ma jirin beel maqnayd ma jirin go'aanka aynu qaadanay go'aan qadhaadh buu ahaa dagaal qadhaadh iyo burbur iyo dhiig shubmay iyo khasaare aynu kala kulannay xubbigii iyo jacaylkii aynu u qabnay shantii Soomaaliyeed oo aynu u fidaynay teennii ayaynu maalintaa ka tashannay oo aynu nidhi xornimada aynu ka qaadannay Ingiriis 26 Juun 1960 aynu ka qaadannay ee aynu ku baadi doonaynay shantii Soomaaliya tii ugu horraysay aynu isku darsannay inay xumaysay dabeedna aynu ku tashannay inaynu waxeennii dib ula soo noqonno. halkankaa la soo maray weli wuu socdaa ilaa ictiraaf laga gaadhayana wuu soconayaa. nin liita uunbaa dhexda u furta in guushi dhan tahay. nin liita uunbaa dhexda u furta in rag way isu nasanayee isdaayey. waxa weeye ninka maanta u dhimanaya iyo ninkii 80aadkii dhimanayey dhiiggoodu way isku mid ee laba maaha. shacabka reer Sool shacabka reer Laascaanood aad baannu uga xunnahay khasaaraha Laascaanood ka dhacay, khasaaraha dadka ku dhacay, khasaaraha ku dhacay deegaanka, khasaaraha hantida ku dhacday aanu qayb ka ahayn Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo dhismaheeda waannu ka dignay, waannu ka talinnay, waana laga diiday. dagaalay Jamhuuriyadda Soomaaliland dooratay waa ahayn dagaal lagu khasbay buu ahaa. khasab baana ahayd in dalka la difaaco waana la isku canaantoo dawladda in badan baa lagu canaantoo la yidhi maxaa markii horeba u diidi weydeen. ninna waannu diidnay in dalkiisa loo diido. taasu halkaa waxaan ku soo dhowaynayaa waannu ka xunnay. maantana dawladdu dalkana waa difaacaysaa, nabaddana waa u diyaar, gogasheedu waa dhigan tahay. ciddii wal ee u diyaaraba waannu kala hadlaynaa, waana lagala hadlayaa, waana og tihiin. saacad walbana difaac buu ciidanku jiraa, weerar maaha. taasuna waa taa. waxaa kaloo halkaa inoogu jirta innaka haddaynu nahay reer Soomaaliland inaynu ku midowno qarannimadeenna, inaynu wixii gudaheenna dhiganno, inaynu dalka difaacno, in ninka maanta jooga iyo ka berri joogaaba ku midoobaan, ka berri doonaya inuu yimaadaba ku midoobaan dalkan sidii loo midayn lahaa. hadafkeennu waa inuu noqdaa midnimo, nabad, horumar. wararku dhaggeenna intaanba ka dhigannaa waa midnimo, horumar iyo nabad. nabad haddii waa nolol ma jirayso. mid gudaheenna iyo mid xuduudda dibadeenna inaga soo difaaco. hal dagaalka ka socda Laascaanood waa dagaal Soomaaliland la doonayo in lagu burburiyo oo inakii layna kala qaybiyey
meelo kaloo la ducaduceeyeyna waa ogtihiin inay jiraan gudaheenna meel walba waxaan leeyahay dadka shacabka reer Somaliland u midooba qarannimadiina xisbiyada qaranka shacabka ciidankiina isbarbar taaga nabad doona ninkii soo helay oo la kaalay qiimo kastaynu ku qaadanaynaa midnimadeenna qiimo kastaynu ku qaadanaynaa nabadeenna qiimo kastaynu ku ilaalinaynaa mar haddaynu dhiig u quuray wix dhiig ka sokeeyo oo aynu jeclaysanaynaa ma jirto dahabadayta waa ku iibsanaynaa waxaan leeyahay shacabka reer togdheer maanta qurux badan tihiin mucaarad iyo muxaafidba midaysan tihiin u midaysan tihiin qarannimadiinna waa sidaas soo waarta haddii midnimadaa la waayo oo la kala jeesto iska daa laascaanoodo dee innaka iswaayayna war midnimadeenna aan ka shaqayno gacmo geer jire hoos baa loo maydhaa baa la yidhi madaxda qaranka iyo siyaasiyiinta iyo asxaabta taladeennu siday ahaan jirtay ha noqoto dhaqankeennu wuxuu hayaa labada ishaya ee isku xaafadii markay cid kale isqabtaan inay tooda dhigtaan oo ta kale ku dhaqaaqaan markay taa dhammeeyaanna toodii dib u bilaabaan waxeennu caynkaa ha noqdo xan iyo faylba ha la beelo waa kuwaa ka hadlay wadaacdii xisbiga waddani labadii oday ugu waaweynaa sidaasay guushu ku jirtaa sidaasaanaynu ahaanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu